الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصحافة كان هلك كوقبانيو أفرلاتك بيشة شون وحسب ما أنت التاريخ ضايع أفرلاتك شون لبكون يسدد طبعا وحاشير شراء كوقبتي مجال هذا قال كعيو حسابيه هو جوال كمودو وسارد المالية ده مصر بخدله آذن موسى كدي مركز شغال اللغة شوشيء حلو جدا شلعان تضيوي طبعاً كيتشون لبكون يسدد طبعاً أهرمها أو كهذا لوحة كم ده قدر ككواد وسارد المالية ده إسألك أهري إنه كعص صدي العقد طبعاً كون أو دولار أو كو استعماله خرج أهان أرنت لوحة ميل كدع كتاهي وسيرك وسارد المالية ده دولة بوتلان سببت أو سيركو إسقى معمولة وسارد المالية ده بوتلان أردن wuxuuna leeyahay adeeg iyo mushahar u qoondaysan marka ma jirto sabab ku kalifaysa inuu xisaabiye wax gaar ah weydiisto waxa meel ka dhac ku tahay wasiirka iyo wasaaradda maaliyadda dhan qodobka labaad oo ka hadlay xisaabiyuhu canshuurta qadaraasyada kadib markii xisaabiyaasha gobolada ee wasaaradda maaliyadda si sax ah u qaadi waayeen ayaa wasaaradda maaliyadda go'aamisay in lagu qaado goobaha qandaraasku ka dhaco mana ahan wax gobolka mudug ku gaar ah inta badan qandaraasadu waxay ka dhacaan caasimada dawladda Puntland ee Garowe qodobka saddexaad oo ka hadlay xisaabiyihii hore ee gobolka mudug ee wasaaradda maaliyaddu wuxuusan aqoon u lahayn nidaamka cashuuraha iyo furdooyinka sida uu sheegay oo yiri madaxweynahan kala hadlay cashuurahan kala hadlay madaxweynaha waxa u dhaxeeya jaranjarooyin badan oo dhaxaysa mana aha marka qodobka hadalkaas hadal waafaqsan nidaamka iyo sharciga dalka u degsan qodobka afraad lacagta lagu dhisay kantaroolka laanta dusmada waxa lagu la heshiiyay lacag dhan 89,000 oo dollar ka bacdina waxa laga bixiyay qasnada dhexe ee dawladda Puntland 86,000 oo dollar gobolka mudugna waxa lagu qoondeeyay 3,000 oo dollar ka bacdi ninkii qandaraas lahaa wuxuu sheegay 3,000 oo lagu qoondeeyay gobolka mudug in aanu wili aanu bixin xisaabiyaha gobolka mudug halka uu been abuurka yiri customka 190 iyo lacag dheer baa lagu la heshiiyay qandaraaslayaasha meesha uu yiri halka waxay cadeynaysaa meeshii mas'uulka ka ahaa in aan mas'uuliyadii aanu wala soconba qodobka shanaad lacagta xisaab xirka lagu siiyay guddiga dhaqaalaha oo uu yiri lacag baa guddiga dhaqaalaha xisaab xir loo siiyaa taas waxay meel ka dhac ku tahay golayaasha dawladda iyo wasaaradda maaliyadda bay meel ka dhac ku tahay وانا arrin dambi ah oo xisaabiyuhu ku kacay intaas waxa dheer muddadii uu joogay oo dhamayd 12 bilood xisaabiyuhu ku guul daraystay inuu bixiyo mushaharooyinka ciidamada gobolka mudug waxaana laga bixin jiray gobolada kale ee Puntland qasnada dawladuna waa isku mid laakiin se wixii ku qoondaysnaa gobolka mudug ayuu soo xireen way bixin waay qodobka lixaad lacagta ka soo xirata furdada boosaaso oo ka hadlay xisaabiyihii hore gobolka mudug ee wasaaradda maaliyaddu kama warbixin kara isagu balse wuxuusan ogeyn meelna ku sheegi karin wixii ka soo xirada gobolka mudug ee wasaaradda maaliyadda sidoo kale xisaabiyaha waxba kama oga kharashka dawladda Puntland iyo sida uu ku baxo mas'uulna ugama aha shacabka iyo dawladda Puntland haddaba waxaan shacabka Puntland iyo dawladda Puntland la socodsiinayaa in xisaabiyihii hore ee gobolka mudug uu ku guul daraystay shaqadii loo igmaday sida ku cad dikreetada lambarkeedu qoran yahay taasoo shaqada lagaga joojiyay ayna ku cad yihiin xulgudasho la'aan xisaabiyaha hore waxaana ku lifaaqan tahay war saxaafadeedkan
sidoo kale wuxuu xisaabiyuhu dahabshiil gaalkacyo kala baxay 89,000 oo dollar oo ahayd 99,000 oo dollar oo ahayd mushaharkii ciidamada daraawiishta gobolka Mudug lacagtaas waxaa looga diray Garowe xisaabiyaha gobolka Mudug waxaa laga doonayaa wixii uu ku hadlay inuu cadeyntooda keeno waxa kale oo laga rabaa aan la socodsiinayna hay'adaha sharciga inay ku maqan tahay lacagtaas 89,000 ah 99,000 ah oo ah mushaharka ciidanka daraawiishta aad iyo aad baad u mahadsantiin intaa waxa uu heliya warqadda tan waa dikreetadii shaqada lagaga joojiyay 17 bisha Juun bay soo baxday dikreetadana waxa weeye dikreeto labaad oo lagu magacaabay guddi soo hubiya shaqada ka socota gobolka Mudug ee wasaaradda maaliyadda iyo waxyaalaha aanu tuhunsannahay oo keenay habacsanaanta keenay iyo inaan kharash kii lagu qoondeeyay aanu gobolka aanu bixin keenay ka bacdina guddi baa loo diray 4 xubnooda oo isugu jira ayna ka mid yihiin xisaabiyihii dowladda Puntland iyo agaasimihii dakhliga guud ee dowladda Puntland iyo 2 xubnood oo xubin ka mid ah xisaabaadka iyo xubin ah internal auditka taasaa marka keentay inuu galgalashada keeno haddana baaritaankii waa la wadaa warqadda tani waxa weeye warqaddii customka laanta dusmada heshiiska aanu kula galay oo isagu ku tilmaamay inay ahayd 190 iyo lacag dheer laakiin waxay ahayd 89,000 xaqiiqdina waxaan oran karaa cashuurtii dawladda ayaa lagu dhisay customkaas warqadda tani waxa weeye warqaddii loo diray oo shaqada lagaga joojiyay markay gaartay weeye warqadda tanna waxa weeye waa warqaddii dahabshiil Garowe lacagta 99,000 ah oo mushaharka daraawiishta gobolka Mudug ah oo loogu diray haddana isaga ku maqan aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wasiir hadda ayaa sheegteen inaad ninkaasi shaqada ka joojisay laakiin ma markuu isagu sheegay inuu saasi markaasi ay wajin shaqada ka joojiseen oo kaliya mise waa shaqada ka eedeen oo dabcan diiga aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida dikreetada ku cad anna aan sheegay waxa weeye anagu waxaan ku sameynay shaqo joojin sideedana qofku xaq u leeyahay in baaritaan lagu sameeyo inta wax ku cadaanayana waa eedaysane laakiin markii wax ku cadaadaan buu dambiile noqonayaa sida laaligeed annagoo eegayna xeerka shaqaalaha annagoo waxyaalo badan eegayna waxaan ku sameynay shaqo joojin laakiin shaqada annagu kama aanan qaadin kadibna baaritaan baan u diray in arrintii la soo xaqiijiyo ka bacdi isaga meediyaha wuxuu ka sheegay inuu iscasilay isagoo ka gelgelinaya arrimihii baaritaanka iyo waxyaalaha lagu waday marka anagu shaqo joojin baan ku sameynay haddase hadda isagaaba ilaahay waa iscasilay wuxuuna isku boor qarinayaa waxyaalaha aan ku tuhunsannahay caddaymahoodiina hadda la wado lana soo dhammaystiri doono wuxuu rabaa inuu ka hor dhaco saa ka hor dhacay wasiir warqad waxaa jirta uu soo bandhigay oo saxaafaddu u soo bandhigay gobolka Mudug uu leeyahay waa xisaab dahabshiil akoonkaaga dahabshiil waraaqa laga soo daabacay oo laba uu ku leeyahay uu ku tilmaamayo lacago fara badan warqadaasi maxaad ka leedahay aad baad u mahadsan tahay waa su'aal wanaagsan horta warqadaas warqadii waa kuwa kan waxaana aaminsanahay ummadda intay aqoon lehna waa u jeedaa inay yihiin warqada la foojar gareeyay anigu qardhaa ku qoran qardha akoon kuma leh waxaadna weydiin kartaan dahabshiil qardho iyo dahabshiil boosaaso iyo dahabshiil garow laakiin akoon dahabshiil waa ku leeyahay lambarka lasoo daabacayna maaha akoonkaygii aan lahaa anigu qardhana akoon kuma leh taas inta haddaan ka gudbo waxaan oran karaa dahabshiil waa xarun ganacsi iyaga laftooda la rabaa inay caddeeyaan
sumcad dilisna waxay ku tahay dadka macaamilka la leh iyagaa la rabaa inay caddeeyaan aniguna xaasha lilaahi nin wax qarsanay maahay xor baan ahay kalsoonina waan isku qabaa waxaan oran karaa akoon barayfad anigu waa leeyahay weligana waa lahaa laakiin hanti dowladeedna welig kumana shuban doono mana aha akoonkani akoon aniga aan leeyahay amaasanti hadda waxaan noo sheegtay in ninkaasi lacag uu la baxay oo yahay ciidamada daraawiishtu oo aad ku daba jirteen oo baaritaan ku wadeen hadduuna ninkaasi maanta hadlin ma ogaanin anagu inaad ninkaasi tu lacag la baxay haddana aad baaraysa markii uu hadlay inaad tiraadaan isagana intaasaa ku maqan wixii ma soo sii aad baad u mahadsan tahay waxa weeye sideedaba horta arrin dawlo weeye sir dawlo weeye sir dawlo hadday mar tahayna baaritaan baa la wadaa qofka waana la daba joogaa waxaana caddaynaysa guddi baan u diray guddi baana daba joogay marka in anagu hadalla waxa kalifay isagu markuu media ka hadlay uu sheegay warqadaha been abuurka ah awalna waa la daba joogay waa lagu raad joogay caddaynteena waa la waday waa mahadsantahay